بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مeel kastood nagala socotaan waa janalkeennii cagta iyo dunida CID Pro TV ee wararka wareysiyada iyo waxaan usoo joogay oo aad inta badan ka dhagaysataan kana daawataan wararka iyo barnaamijyada iyo wareysiyada. bisha July waa 2026 wararka caalamka iyo janalkeena iyo maalinka maanta. Iran iyo waliba Mareykanka ayaa habeenkii 11aad isweeraray iyadoo qolo walba ay sheeganayso inay guul ka gaartay. Ameerikaanku waxa uu sheegayaa inuu weeraray goobo dhinaca militariga iyo guud ahaanba qalab militari iyo goobo kale oo istiraatiiji u ah. Ameerikaanku waxay sheegeen inay qorshaha ugu jirtay inay weeraraan goob ka mid ah meelaha lagu tuunsan yahay nuclearku inuu ugu aasan yahay amaba uu u yaalo wadankaasi Iran ilaalada kacaanku waxay Tehran ka sheegeen inay weerareen danaha Ameerikaanka ee wadamada Kuwait, Bahrain iyo dalka Qatar, taasoo ay sheegeen dhib xoog leh inay geysteen. marka daba la fiiriyo labada dal uma muuqdaan qolo walba qolada kale inay u aragto inay arrinka cagta u dhigto, laakiin warar ayaa sheegaya in aad loogu mashquulsan yahay sidii wax looga qaban lahaa dhiiladan habeenkii 11aad, iyadoo la sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee wadankaasi Iran in uu iminka joogo isagii wafdi uu hogaaminaya magaalada Islamabad, halkaasi oo ay kula kulmayaan maamulayaal sare oo ka tirsan dalka Pakistan oo kamid yahay taliyaha guud ee ciidamada wadankaasi Pakistan Field Marshal Asim Munir. lama oga sida ay u yeeli karaan Iran iyo Ameerikaanku marka hore in ay dagaalka joojiyaan, marka labaadna ay miiska wada hadalka dib isugu soo laabtaan. laakiinse qorshaha ay wadeen wadamada wax dhexdhexaadinaya intuba waqtiyadii ugu dambeeyay kuma aanay guuleysan arrinka ay doonayeen oo ah in la joojiyo guud ahaanba colaadda dhinaca gacanka Hormuz oo dhibaato xoog leh ay ka taagan tahay. maalmihii ugu dambeeyana maraakiib la weeraray. Ameerikaanku waxay sheegeen inay u dul qaadan doonin mar kale in ay Iran ay markaas iyadu maamusho biyahaasi caalamiga ah. Iranna waxa ay sheegtay inay tahay ta iyadu mar walba maamuli doonto, la socon doonta dhaqdhaqaaqa gacanka Hormuz marka la fiiriyo maraakiibta sii socota iyo kuwa soo socda intaba, ayagoo waliba dignin u jeediya guud ahaanba maraakiibta biyahaas mari doonta haddaanay warka ka maqlin Iran inay dhibaato iyo cawaaqib xumo ee markaasi ay mudan karaan. wararka ka imanaya dalka Talyaaniga waxay shaaca ka qaadeen ra'iisul wasaaradda dalka Talyaaniga Giorgia Meloni inay cambaareynayso deganaansho la'aanta ka jirtay magaalada Bologna, taasoo ka dambeysay markii nin Maroccan la dilay kadibna soo baxyo xoog leh oo rabshado watahay ay dhaceen. Giorgia Meloni waxa ay tiri baaritaan ayaa la sameynaya, xaqiiqada ayaa la raadinaya, laakiin xalku kuma jiro in dhibaato la geysto iyo dhaawac iyo waliba dhimasho. wararku waxay sheegayaan dadka tirada badan ee isugu soo baxay waqtiyada kala duwan magaalada Bologna ee dalka Talyaaniga ee ka xumaa ninka 42 jirka ah u dhashay Morocco ee Cabdiraxiim Fakir dhimashada uu dhintay inay rabshado ay keentay, taasoo waliba la sheegay askar booliis oo ka badan ilaa 30 inay ku dhaawacmeen dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacay magaalada Bologna ee dalka Talyaaniga. wararku waxay sheegeen in booliiska loo wacay ninkaasi dhintay 42 jirka ah ee Cabdiraxiim kadib markii la sheegay gawaari inuu jajabinayo booliisku markii ay yimaadeen ay isfara saareen, kadibna ay booliisku qabqabteen iyagoo waliba dhulka seexiyay, kadibna gacmaha iyo waliba lugaha ka xiray, taasoo la sheegay inuu neef qabatimay markii ay ku dul istaageen amaba ay ku riixeen dhulka, kadibna ay dhacday inuu dhintay, taasna ay ka caroodeen dadkii soo baxayaasho. dadka faallooday markay arkeen muuqaalada ay ka dheehdeen magaalada Bologna dhibka ka dhacay ninka Maroccanka waxay barbar dhigeen inuu wiilkaasi u dhintay qaabku u dhintay ninkii la oran jiray George Floyd ee bishii May 2020 markii ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee Mareykanku ay dhulka ku riixeen oo uu nafqabatimay, kadibna uu sidaasi ku dhintay. ra'iisul wasaaradda Giorgia Meloni waxay sheegtay inay laga maarmaan tahay in la baadi goobo lana baaro arrintani siday u dhacday si loo ogaado xaqiiqada dhabta, laakiin ay ka digtay dhibka xoogga leh oo ay cambaareynayso in rabshado markaa lagu mashquulo halkii ay ahayd in la baaro oo deganaanshaha markaas lagu dadaalo. maaha markii ugu horreysay ee dalka Talyaaniga arrimo nooca kale ay ka dhacaan. dhowr toddobaad ka hor ayay ahayd magaalada Bologna sidaasi oo kale in rabshado iyo dhibaatooyin iyo soo baxyo ay ka dhaceen markii ay dhacdeen nin Maroccan inuu markaasi uu dhibaato geystay. weli waxaad nagala socotaan janalkeena CID Pro TV. wararka ka imanaya dalka Netherlands ee qaaradda Yurub waxay shaaca ka qaadeen dowladda Netherlands inay go'aan ku gaartay wixii ka bilowda 22 September inaanay iibsan doonin waxyaabaha laga keeno ama laga soo dhoofiyo ama ka baxa dhinaca daanta galbeed iyo dadka iyagu dhulkaasi ku degan sida xoogga ee Israel. Netherlands ayaa aqalkeeda hoose wuxuu u codeeyay
arrintaasi iyadoo markaasi qiil looga dhigayo rabshadaha iyo dhibaatada ay geysanayaan qolyaha iyagu juwishka ee settlerska lagu magacaabo oo iyagu degan sida xoogga oo sharci darrada ku degan daanta galbeed ee dadka reer falastiin. reer yurub marka la fiiriyo ayay la qabtaa dowladda netherland go-aankoodii waqtiyada kala duwan ee ugu dambeeyey oo ay ugu sheegtay dowladda israa'iil gebi ahaanba inay joojiso qolyaha iyagu settlerska lagu magacaabo ee sida sharci darrada ku degan dhulka daanta galbeed, rabshadaha ay wadeen, boobka ay wadeen iyo weliba baabi'inta iyo duminta guryaha dadka reer falastiin, taasoo ay sheegeen midowda yurub inay tahay arrin aan loo baahnayn. hadda ka hor cunaqabateyn ayaa jirtay lasoo rogay oo ku saabsan qolyahaasi iyagu sida sharci darrada ku degan. aqalka hoose ee dalka netherland waxay intooda badan u codeeyeen marka laga bilaabo sebtembar 22 waxyaabaha guud ahaanba kasoo baxa ee laga soo dhoofiyo dhinaca daanta galbeed ay soo dhoofiyaan qolyaha sida sharci darrada ku degan ee israa'iiliyiintu in aan la iibsan tan iyo inta xaaladdu markaasi ay iska bedeli doonto. maaha oo keliya reer yurub ee wadamo badan oo dunida ah ayaa cambaareeyey falalka inta badan ay ku kacaan qolyaha israa'iil ay sida sharci darrada ku dejishay 1967 iyo wixii ka dambeeyey dhulkaasi daanta galbeed, laakiin waqtiyadii ugu dambeeyay bilaabay dhibaateynta dadka reer falastiin, baabi'inta guryahooda iyo boobka dhulkooda intaba. halkaad weli nagala socotaan waa CID Pro TV. markan waxaad kusoo dhawaataan qadar xayeysiisa oo ku saabsan Mega Dentist oo ah hay-ad iyadu ka shaqaysa guud ahaanba wax ka qabashada iyo daaweynta cudurrada ku dhaca dhinaca ilkaha. waxayna Mega Dentist xarumo ku leedahay magaalooyinka Istanbul iyo Ankara ee dalka Turkiga. waxaan dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa in Mega Dentist oo ku taala magaalada Istanbul laba xarumood iyo meel ku taala dalka Turkiga qaar ahaan magaalada madaxda Ankara in lagu talagalay in lagu daaweeyo cudurrada kala duwan ee ku dhaca afka, taasoo macnaheedu uu yahay in lagu daweynayo si kastoo xanuunkaagu u jiro. waan qabaa waa aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo xanuunkaasi qaba inuu jeclaan lahaa in laga daweeyo. sidaa darteed dadka ka yimaada meelaha kala duwan sida Mareykanka iyo Yurub, Australia, New Zealand, Afrika iyo Carabta dhammaantood waxay diyaar u yihiin Mega Dentist. dadkan ila taageena dhinaca bidixda dhaqaatiirta buluga iyo weliba dadka kalkaaliyaasha iyo maamulkuba inay si fiican oo qiimo leh u soo dhaweeyaan sida horeba ugu soo dhaweey jireen. waan hubaa adigoo faraxsan inaad iman doontid, adoo farxaddaadu ay zaa'id tahay oo mahad celinaya inaad laaban doontid. meel kastoo aad joogtaan yaan la moogaan inaad la xiriirtaan Mega Dentist oo aad telefoonka shaashadda ka arkaysaan. anigoo cagta xaajiyana farxad bay ii tahay inaan idinla wadaago muuqaalkan iyo weliba inaan idiin sheego xaaladda wanaagsan ee halka ka jirta lagu dabiibayo ilkahaagu xanuun kastoo ay qabaan. wararka ka imanaya dalka Ghana ee galbeedka qaaradda Afrika waxa ay shaaca ka qaadeen in nin isagu madax ka ah ama gudoomiye xisbi mucaarada oo lagu magacaabo NPP oo ah New Patriotic Party in markaasi ninkaasi la maxkamadeeyay oo lagu xukumay 20 sanadood oo xarig ah, iyadoo qiil looga dhigayo in lagu cadeeyay in kamarigiisa ama shirkadiisu si sharci darro ah ay markaasi macdan uga baaraysay guud ahaanba goobo ka tirsan waddanka Ghana. waddankaasi Ghana ayaa intii u dambeysay waxa ay dagaal kula jireen qolyo dhinaca gudaha iyo dibadda ah oo iyagu macdanta si sharci darro uga baarta meelo ka mid ah waddanka Ghana. baaritaankaas iyo dacwadda dadka lagu soo oogay ayuu ka mid yahay ninkan siyaasiga oo la sheegay inuu yahay siyaasigii ugu horreeyay ee mucaarad iyo maxaafid ee ka tirsan dalka Ghana oo markaasi ninkaasi la maxkamadeeyo. waxaa lagu magacaabaa Bernard Bousiako, waxaana la sheegay shirkad uu leeyahay inay iyadu baaritaan ka waday sharci darro ah waddanka Ghana. taasina ay keentay markii baaritaanka la sameeyey in la ogaaday in shirkadiisu ay ka mid tahay sharikadaha iyo dadka shakhsiyaadka ah ee sida sharci darrada iyagu markaasi macdanta uga baarta waddanka Ghana. maxkamadiisa markii garsoorihii uu ku dhawaaqayay iyo go'aanka 20 sano ah ayuu sheegay isaga iyo kuwa u doodayaba inay tahay arrin aan la hubin, laakiin ay u muuqato inay tahay hadallo la dhoobayo siyaasad ahaan siduu hadalka u dhigayo Bernard. waxa ay noqonaysaa tallaabo tusaale u noqonaysa marka la fiiriyo dadka reer Ghana iyo kuwa kale aan Ghana ahayn oo muddaba iyagu ku mashquulsanaa marka la fiiriyo waddanka Ghana inay macdan sharci darro ah ka baartaan. dalka Ghana waxaa loo tiriyaa inuu yahay dalka ugu dahabka badan marka la fiiriyo xagga soo saaridda iyo dhoofinta ee guud ahaanba khayraadka qaaradda Afrika ee dhinaca dahabka. qodobkeena ugu dambeeya wararkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa inta badan muhaajiriinta iyo dadka iyagoo magangelyadoonka ayaa nafsadooda ku beemeeya marka la fiiriyo badaha kala duwan, iyadoo ay ugu badan yihiin dhinaca Mediterranean-ka iyo dhinaca Atlantigo. wararkii ugu dambeeyay ka imanaya dalka Maghrib ee Mauritania waxa ay shaaca ka qaadeen in la soo badbaadiyay dad ka mid ah dadkii la socday doon iyadoo markaasi ka timid asal ahaan dhinaca waddanka Gambia ee galbeedka qaaradda Afrika
oo soo socotay dhinaca Atlantiga dhowr maalmood laakiin shidaalkii uu ka dhammaaday taasina ay keentay in doontu ay quusto. Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa laanta ugu qaabilsan dhinaca qaxootiga UNHCR saraakiil ka tirsan waxay sheegeen in markii la ogaaday in doontu ay quustay maalmahii u dhaxeeyay July 14keedii iyo 18keedii lagu mashquulay sidii loo heli lahaa raqdooda iyo ruuxooda dadkii la socday. taasi waxay keentay in la ogaaday meydka 143 ka tirsan dadkaas iyadoo tiro kalena markaa la soo badbaadiyay. waxaa ku jira ayaa la yiri caruur laba ah oo waalidkood ku waayay doontaasi iyadoo iminka lagu dabiibayo isbitaal ku yaala dalkaasi Mauritania. inta badan dadka ka imanaya dhinaca galbeedka qaaradda Afrika Atlantiga soo mara waxa ay ka gaarsiiyaan haddayba naf ku tagaan Jazaa'irka lagu magacaabo Canary Islands ee dhinaca dalka Spain halkaasi oo isku dayaan inay qaaradda Yurub ay ka galaan. Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa aad ay uga dayrisay dadka muhaajiriinta ah ee nafsadooda ku biimeynaya marka la fiiriyo guud ahaan badaha. iminka baaritaan ayaa la wadaa sida ay ku soo bilowday safarkoodu iyo xaaladuhu siday ahaayeen iyadoo la sheegi karo sida UNHCR ay sheegtay in dadkaasi ay ka badan karaan tirada iminka loo malaynayo. mar haddii 143 meydkooda la helay tiro kalena la helay ayaa la sheegayaa inay jiraan qolyo kale oo aan la ogeyn raqdooda iyo ruuxooda laakiin lagu qoob joogo baadigoobkooda. dowladda Mauritania waxay shaaca ka qaaday inta badan aageeda inay soo maraan dad aad u fara badan oo kumanaan ah iyadoo weliba warbixin toddobaadyo ka hor ay soo saartay Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa laanta ugu qaabilsan dhinaca qaxootiga UNHCR waxay sheegtay in ay jiraan dad ka badan 45,000 oo ruux oo iyagu ku dhintay Atlantiga kana yimid galbeedka qaaradda Afrika inta aanay beegsan oo ama cagaha aanay dhigin Jazaa'irka Canary Islands ee ku yaala dhinaca Spain oo ah meesha ay u arkaan inay ka geli karaan qaaradda Yurub. sidaasi oo kale ayaa markasta dhibaatadu ay ka dhacdaa dhinaca Mediterranean-ka dadku marka ay ka tagaan waqooyiga qaaradda Afrika sida Tunisia iyo Libya oo ay ku dhibaatoobaan markaasina ay dib ay ka soo gaarto dhinaca doomaha yaryarka ah ee cooshada ah ee alwaaxa ka samaysan iyo macmalka oo iyagu badaha gudahooda markaasi kula dhaca. aad ayaa la isugu dayaa sidii loogu dadaali lahaa dadkaas guud ahaanba in lagu xasiliyo meelaha uu safarkoodu ka soo bilowdo laakiin waxay qiil uga dhigaan nabadgelyo la'aan iyo colaad iyo dhibaato ka dhacda dalalkooda iyo qaarkood oo dalalkooda ay degan yihiin laakiin doonaya dhaqaalo iyo jeeb buuran oo ay isleeyihiin ka shaqaysta guud ahaanba qaaradda Yurub laakiin inta aanay gaarinba ay markaasi ay ku naf waayaan badaha kadib markii doomaha iyo walxaha kale la socdaan ay halkaasi ay markaasi ay ku quusaan. intaas ayaan kusoo qatibaynaa wararkeennii marka la fiiriyo janalkeena cagta iyo dunida CID Pro TV ee wararka wareysiyada iyo waxaan u soo joogay markasta iyo meel kastoo naga dheehataan wixii xoga iyo wixii talo iyo tusaale waa idinla wadaagayna adinkuna waa nala wadaagi kartaan. maxamed axmed xaaji maxamed cagmadhige iyo bahda janalka CID Pro TV waxay idin leeyihiin kalama tegine. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.